إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سوين بقى هذا يا بس قصة محكمة سمرقند الشهيرة، قصة ظهر كان قادنا ومحكمة سمرقند الشهيرة أما العادلة السوق كذا على سمرقند وبلاد ما وراء النهر دولك الله يراهدو، ما وراء النهر دولك الله يراهدو إلى روسيا إلى تشاينا متحن ما وراء النهر لدها مركادولك هذا جمهورية لدها بانم مالينيا أزبكستان إنتاي أي كتالا ولما بدن oo samarqandiin ayaa jira oo taariikhda islaamka kutubada inoo soo waariday. qisadana markaa waxay ka dhacday magaaladaasi ka dhacday. waxaynu ognahay islaamku inuu mudayar ku intishaaray oo ilaahay subxaana wa tacaala ugu daray. samarqand waxaa la gaaray marka nin muslima Qutayba ibnu Muslim la oran jiray ayaa ciidamadii furtay hoggaansanayay. waqtiga la furanayay samarqand waxay ahayd waqtiga Cumar bin Cabdilcaziz raxmatullaahi calayh. samarqand asxaabu alqissa wuxuu leeyahay habeenada ka mid ah oo jiifa oo hurda ayaa la isticiyay wax kiciyayna garan maayo. amar baa la isticiyay inaan meel habla tabacidiisayna markaa garan maayo. adigu naftayda waa wajahanta meel baan iska aaday, magaaladii baan ka baxay buu yiri. samarqand la oran jiray waxaan galay qaabo aad habeenbad meel aad iyo aad u mugdi badan oo baxara laga baqaayo oo dulmi badan baahayinkiisa, laakiin waxba iska hoggaansanaya. wuxuu hoggaansadaa waxaan u tagay macbad weyn oo dadku ay caabudi jireen oo la oran jiray ilaahiyada ayaa degan buu yiri. halkii baan gaaray buu yiri, habeen bardo ay tahay, albaabkii baan istaagay. cid wada marka garan maayo. markaasaa nin aad u dheer ayaa iga soo baxay. ma hariyo waa xaqiiqa. nin aad iyo aad u dheer aan ka baqay baa iga soo baxay buu yiri. markaasuu yiri anta fulaan, hebel miyaa tahay? haa buu yiri, anigoo xaalad khayaal ku nool aanan garanayn cid meesha i keentay waxaan u socdo qofka markii hore aan ka baqayba. waxa uu yiri wuxuu yiri meel gud hoose oo sardaad ah, meel hoose ayaan galay buu yiri oo aad iyo aad u baqdin badan. ninku gacantu yahay waa ijiidayaa buu yiri. wuxuu ijiidaba buu yiri, wuxuu igeliyay. waxaan arkay markaan meel ciriira weeye meesha aan galnay. waxaan ku arkay labada dhinac iga xiga bahalo iyo wax tamaasiil ah oo sidii bahalo oo kale ah oo indhahooda nal oo kale wax ka baxayaan, yani oo aad iyo aad u ruuc badan. wadno aad u gelgelinayaa buu yiri. wuxuu i kaxeeyay markii dambe waxaanu galnay qaaca aad u weyn, meel aad u ballaaran ayaan tagnay oo dad aad iyo aad wejigoodu u bedelan yahay oo aan ka baqay oo muuxisha oo bashar ka watayn ay fadhiyaan. kabacdi albaabkii uu istaajiyey wuxuu yiri aniga halkan laygama ogola. waxa ulaa'i alkahanatu kuwana waa kahanadii samarqanda wa aalihatahum iyo aalihadii ay reer samarqanda caabudi jireen. waana ku rabaane u gal adigu. anoo taagan oo baqayaa mid soo kacay. يعني وقرنيسا أننا كبحين ماشا وعلى الماشا عدي قشا كما سبحي شرين وحكو شرا لما قرنايو ساسا عاد بقف هذين لو جين شرين إذا عدنا وقين قفاسنا كما سبحي شرين كما عاد ودادير وعن فادنين عند آد واوين عادي عاد وحي عشي جريا دادي عشي جريا الماشا وتغيبو يري وحيوي رادين منك كهنة وين على ليدي يبو يري وحيري نحن كما كهنة سمرغندا وعنا هيدت كهنة سمرغندا آلي هدولي. waxaad og tahay taariikhdii buu iga waramay reer samarqanda waxaynu ku sugnayn iyo barwaaqadaynu ku jirnay iyo nicmadii iyo diinihii aynu haysanay. waxaa inoo yimi wuxuushta tan muslimiinta ah buu yiri. dhulkeennii bay qabsadeen, diin aynaan garanayn bay dadku ku intishaariyeen, mulkigeennii bay suuliyeen, xadaaradeennii bay baabi'iyeen. waxaanu awoodi karnaa inaanu baabi'ino oo laxdo aanu ku burburino oo aan fasaadino oo dumar ay ku kharabin aanu soo dirno. laakiinse waxaanu taa u daynaynaa buu yiri. waxaanu maqalnay boqor caadil inay leeyihiin oo magaalada Dimashq la dhaho fadhiya. waxaanu rabnaa inaanu ninka ku dirno. adigana waxaanu kugu dooranay laba arrimood, nin geesi inaad tahay iyo nin luqadda carabiga luqadooda inaad baratay baanu maqalnay. labada arrimood nimankan marka shaadin baa la shaqeynaysa oo ninkan xataa waxa kicinayay shin iyo waxa ay ahaayeen. waxaanu marka maqalnay in aad luqadoodana taqaanin geesiyano aad tahay. waxaanu rabnaa inaad u tagtid ninka boqorka ay leeyihiin ee lagu sheegay inuu caadil yahay. waxaan u sheegaynaa waxa la sheegay diintooda inaynan ka raali ahayn in dhul qaflad lagu qabsado. qaflad iyadoo la wargelin diintooda inay diidan tahay. reer samarqandana haddaad nunahay qaflad baa layna ku qabsaday. waxaa la sheegay diintoodu bay yiraahdeen inay qofka saddex arrimood u bandhigto: in ay islaamaan
hadday diidaan inay isdhiibaan oo jisyo bixiyaan, hadday diidaana dagaal ay u diyaargaroobaan. saddexdaa midna nooma bandhigine mar keliya ayuu qof la baabay nagaga dhigay oo na qabsado dagaal nagu soo qaaday. taas ayaanu rabnaa inaanu ka dacwoonno oo aanu warqad kuusii dhiibno oo aad u tagtid boqorkooda dimashq fadhiya. dimashq iyo samarqanda in ka badan 6,000 kilomitir baa udhexeeya baa la yidhaahdaa. dhulaadu kala fog weeye, diyaarada ma jiraan. farasna waan ku siinaynaa bay dhaheen, aad iyo aad u dheereeya. faras bay siiyeen, ninkii risaaladiibu soo xambaaray, waa gaal isagu marka. waxa uu yidhi dhul aad u ballaaran oo nabadda ka jirta iyo barwaaqada ka jirta iyo nicmada ka jirta ayaan soo maray buu yidhi. cidna cid lama hadasho, cid kuma xadgudubto, jidgooye iyo isbaarooyin dhulka intaa leego 6,000 kilomitira kama ay jiraan. dadku haadi ayay yihiin buu yidhi. waxaan ka dhiyaabay marka dadka kan sida ay u wanaagsan yihiin iyo ciddaan cid dulmiyayn iyo say u shaqaynayaan iyo siday u fiican yihiin. waxaan soo socdaba waxaan soo gaadhay magaaladii dimashq la oran jiray. waxaan idhi itusa balqusuur qasriga boqorka, xaggaa unba gacanta loogu tilmaamaa buu yidhi. xaggaasu kaa xiga boqorku meeshuu degan yahay ama amiir almu'miniin markaas. waxa uu yidhi waan socdaa, waxaan arkaa qasri aad u weyn. waxaan tiraahdaa waan kan gurigii boqorku. waan garaacaa ma ciddaan weydiiya waxaa la yidhahdaa maaha ee hore u soco. waxaan socdaba waxaan ku dhammaaday qasri aad u weyn buu yidhi oo dhexdiisa ay biyo ku yaalliin oo dadku biyaha ku dhaqanayaan. waxaan is idhi alla ilahay kan weeyo qasrigii meligooda. dadkuna waxay u dhaqanayaan si ay intay boqorka ka hor ayay isdhaqayaan oo isnadiifinayaan si ay boqorka u qaabilaan. sidii dadku samaynayeen baan sameeyey buu yidhi. waa maydhay, waxaana galay meeshii. waxaan arkay dad mid u taagtaagan. nin baan salaamay, ilama u hadlin. meeshu waa masjid al-umawi oo dimashq ku yaala. uu galay oo qasriga moodaayo. nin baan la hadlay buu yidhi. wuu ila hadli waayey, waa nin tukanaya markaa. waxau yidhi dhowr jeerba hadalkii markaan ku celceliyey ayaan aamusay, waa baqay buu yidhi. ila nin muslina maaha, xaaladda uu garanayo ma garanayo. waa iska ag fadhiistay buu yidhi. markuu salaamo naqsaday oo ninkii tukadaybu waxau yidhi miyaadan muslim ahayn? waxaan ku yidhi muslim miihi. xagee ka timi? bilaadkaasaan ka imi, samarqand. maxaa rabtay? amiirkaan u rabay. anaa ku geynaayo buu yidhi, anaa ku tusi doona. laakiinse intaanan ku tusin qofka muslimkaa inuu daaci noqdo weeye. ninkan wuxuu rabaa intuunan cidna u geyn markaba inuu bal diinta u sharaxo iyo islaamka wanaaggiisa waxa uu yahay. wuxuu yidhi islaamkii buu iga warramay, mudduu haystay wanaagga islaamka. kabacdi anoo soo arkay dad badan oo muslimiina iyo wanaagay ku nool yihiin, inshiraax baa qalbigayga ku dhacay. waxaan idhi maxaa lagu islaamaa? kelimatu tawxiid buu i qabtay, waa islaamay. hadda igey baan idhi marka meesha uu degan yahay boqorkiina ama amiir almu'miniin. kama uu tanaasulin risaaladii u waday iyo barnaamijkii u socday. ama hore mar haddaa islaamtay maxaa kahanadii iyo kufrigii iyo gaalnimadii ku geliyey? laakiinse warkiibu waxau yidhi baan fulinay. wuu soo kaxeeyey, daar buu tusay cariish ah. ninku wuxuu rajaynayay qasri aad u weyn ayuu boqorka ka rajaynayey inuu degan yahay sidii boqoradooda ama ku arki jiray ama dadka boqortooyadooyinka lagu yaqaanaba. waxau yidhi gurigaa weeye oo rakay. ninkii buu qabsadoo yidhi adoo islaamka baray miyaa been ii sheegaya? meesha tan godka tan waa kan fuqaradu ay galaane boqorkiinu halkan ma gale e ii sheeg, ilaah baa kugu dhaariyey runta ii sheeg. war waa kan ee aad buu yidhi. miyaadan ogeyn? markaasuu cumar bin cabdilcasiis uga warramay. waxau yidhi miyaadan ogeyn amiirkayagu inuu yahay nin caadil ah? way jirtay buu yidhi boqorradayadii hore inay qusuur deganaan jireen, laakiinse maalintii la doortay macnaha cumar bin cabdilcasiis husaaye uu sulaymaan bin cabdimalik uu qoray buu meesha ku yimi oo ninkii mustashaarka ahaa u dhiibay oo dadka kaga ballan qaaday ninkii saleebaan idiin dhiibay raallima kaga tihin haabay yidhaahdeen. cumar bin cabdilcasiis buu yidhi. cumar wuu ooyey marka oo mas-uuliyaddaas ood garanaysaan cadaaladiisii iyo aakhiro siduu ugu jeeday mas-uuliyad weyn buu u dareemay. qisadii cumar buu marka uga sheekeeyey iyo cadaaladiisii iyo ninkani waxa uu yahay. waxa uu yidhi maalintii la doortay aad buu ooyey. waxa uuna yidhi anigu ma aan idinka qaadanayo hawsha tan, dadkiisa way ka diideen. markii ninkii shurdada u yimi oo ilaalin lahaa buu yidhi orod shurdadaada iyo adiguba iga taga, anigu muslim dadka ka mida baan ahay. markii xoolihii boqortooyada loo keenayna iyo ay lahayd khilaafaduna waxa uu yidhi ha la wada iibiyo oo ha lagu shubo baytmaalka muslimiinta. waxaa jirtay buu yidhi maalin maalmaha ka mida inay carruurtiisii oo ooyeysa uu ku yidhi xaaskiisii faatuma maxaa kaa oohinaya, maxaa carruurta ka oohinaya? waxa ay tiri carruurtii magaalada ayaa ciidayo dhar ciid oo cusub bay rabaan. markaasuu waxa uu yidhi ninkii wasiirka maaliga u ahaa
ninkii wasiirka lacagta u hayay khasaanada u hayay ayuu u yeedhay waxa uu yidhi 2 bilood may dayninaysa aan carruurta dhar ugu gade mushaharkayga maysii horumarin karta wuxuu ugu jawaabay buu yidhi yaa ii damaano qaadaya amiir almu'miniin inuu 2 bilood noolaanayo amiir almu'miniin inuu 2 bilood noolaanayo yaa ii damaano qaadaya ayuu yidhi markaas wuxuu yidhi aabe waynu ku safraynaa gaajada iyo dhibka inaan maanta xoolaha idiin dhaco oo fadlan qoro maxaa la oran jiray fadlan miyay ahayd inaan waraaq fadlan ku qoro aakhiro laygu cadaabo iyo inaan u sabartaan kala doorta carruur ay rabaysay weeye Faadumo Umarna uu rabeeyay waxay dhaheen aab waxaan dooranaynaa inaan iskaga sabarno adigana aadan naar gelin adigu manaaqibkii Umar ayuu aad iyo aad uga hadlay ninka saas ah weeye saahid adduunka ka sahday weeye nin aakhiro weeye ninkaas boqorna waa orad u tagbiir waa isaga guriguna waa gurigiisa markuu u tagay oo u dhawaa wuxuu arkay nin dhoobo wata oo guriga yaani meel ka daldaloola hagaajinaya yaani gurigu waa cariishka waad garanaysaan in dhoobo lagu qooyo dhoobadii ninkii wax soo noqday wuxuu yidhi ben adigoo islaama been ii sheegaysa nin kuuliya baa ii jirtay oo guri ka shaqaynayo kuuliya markaasuu wuxuu yidhi waa isagii waana kuu dhaaranaya waa isagii orad u tag buu yidhi amiir almu'miniin cumar bin cabdilcasiis buu yidhi waxa uu yidhi amiir almu'miniin matayhaa buu yidhi waxa uu yidhi waxaan ahay insaan madluuma mushtaki ah mid ashtakoonayo la dulmiyey ayaan ahay anoo hadalkii iga dhammaan ayaa wiilkiisiyo ooyaaya oo dhiig ka da'aya ayaa soo galay buu yidhi oo dhiig ka da'ayo oo wiil kale soo dilay oo halkan wiilkii kale taagan ayaa soo galay wuxuu yidhi makaanag isug wax yar isug wiilkii buu qaaday dhiiggii buu ka dhaqaayay waxaa soo baxday Faadumo binti Cabdimalik oo xaaskiisa ahayd waxay aragtay hooyaad garanaysaan wiilkeedii oo dhiig ka da'ayo iyo wiil ag taagan yaa ku dhuftay wiilkana ku dhuftay baa la yidhi way ku qaylisay marka wiilkii iyo hooyadiiba way ku qaylisay oo waxay tiri wiilkaagu wiilkaygii buu dilay muxuu dilay ma wiilka amiirkuu dilay islaantii way baqday kabacdi waxa uu yidhi islaantii buu la hadlay waxa uu yidhi welfare ma qaadataa welfareka waxa loo yaqaano carruurta hadda la siiyo ama gaaladu ay u taqaano jucla carruurtaadu ma leedahay xoolo ilmahan ma laga siiyaa baytulmaalka waa wiilkii wax dilay may buu yidhi waxa uu yidhi baytulmaalka waraqad buu qaatay wuxuu yidhi baytulmaalka ha laga siiyo Faadumo waxay tiri wiilka dilaa lacag u sii qoraysaa ma wiilka dilay markaasuu yidhi waad baqdin gelisay wiil muslina ayaa takhwiif ku samaysay ayuu yidhi cadaaladdu inta ay ka gaadhay iyo raxmaddu eega ninka saa u naxariisanaya ma u malaynaysaa mujtamaciisa inuu dulmiyaayo kalla waa u yimi markuu arrintii ka tafaruqay buu yidhi sheego waxaad sheeganaysid waxa uu yidhi waxaanu ahay reer Samarqanda waxaanay soo dirtay kahanadii Samarqanda waaligaaga Qutayba ibnu Muslim ayaa duulaan nagu qaaday isagoo noo digin waxa uu yidhi hadalka aad sheegaysid hadduu dhab yahay waa la xukumayaa warqad yar buu u qoray marka waxa uu yidhi qaadigii marka joogay markasta waxaa amiirka qaadi buu lahaa meel kasta oo la tago qaadi islaamiya oo nin muslima shiikha oo diinta wax ka yaqaana qaadi ka ahaan jiray qaadigii buu warqad u qoray waxa uu yidhi reer Samarqanda iyo Qutayba ibnu Muslim maxkamad u qaad waxa ay sheeganayaan hadba wixii islaamku ka qabana ku xukum ninkii warqadii buu qaatay isagoo yaaban ninka qaa'idka ah inta haysta miyaa warqadasan ku amar qaadanaya warqadii buu qaaday wuxuu tagay kahanadii waxa uu yidhi marka sid waa isbedelay noloshaydii oo dhan way isbedeshay markaan soo socday gaajo badan iyo tacab badan baan la kulmay laakiinse markii aan noqday buu yidhi nicmo aad iyo barwaaqaan helay masjidkaan imaadaa markaasa waxaa lay gartaa magaalo kasta aan tago masjidkii labaana muslim ninkii hadda wuu ku tukadaa waxaa lay gartaa inaan musaafir ahay way isku kaydilaan anaa marti qaadaaya ninka musaafirka ah iyo anigaa marti qaadaaya hilib iyo bariis iyo cuntaan ka dhargay buu yidhi intaan jidka sii socday halkaan markii hore leeleelka ku noolaa ninkii waxa uu yidhi muddo yar awal muddo dheer baan moodaayey waktigii ugu qaatay laakiinse markaan noqday muddadii aad bay iigu dhowaatay waayo nin daalan maahay waxaan u tegey kahanadii markaan u tegey ayaa waxaa la yidhi maxaad haysaa marka islaamkayga waan qarsaday buu yidhi waxaan ka sheegay inaan muslimay uma aan sheegin waxa aan yidhi warqadan aan ka wadaa warqadda maxaa ku qoran bay dhaheen ma garanayna buu yidhi wax ku qoran waana mamnuuc in la furo waxaana la yidhi u gey qaadiga jooga Samarqand waxay dhaheen maxay ka qabanaysaa warqadda tanu ninka ciidanka intaa leeg haysta waa balaynu iska eegno warqadii baa qaadigii loo geeyey qaadigii wuu akhriyey Qutayba ibnu Muslim markaa wuxuu ku jiraa
ciidanka xaggiisa hore waxaa laga yaabaa inuu markaa dhulal badan sii furanayo warqad baa loo diray iyagina ballan baa loo qabtay Qutayba inuu yimaado waqtiga intaa ku soo gal muddada intaa leeg waa inaad degdeg kusoo gashaa waa qaa'idkii ciidamada islaamka markaa wata oo meesha dhanna isku haysta Qutayba waa yimi waxa uu yidhaahdeen marka kahanadiina waa loo yeeray annagoo fadhfadhina oo Qutaybadii ciidanka iyo islaamka oo dhan dhulka maamulayay ayaa dhulka la fadhiisiyey iyagina dhulka la fadhiisiyey wax meel sare fadhiisay iyo soo dhaweeyay wasiirka iyo madaxweynaha xalka geeyay iyo ma ay jirto waa acdaa maradi xukun dhacaayo waa isku mid baa la yiri dhulka labadiinuba fadhiista iyaga iyo kahanadii mushrikiinta ayaa la fadhiisiyey wax si loo fadhiyo nin naxiif oo caata oo oday gaboobay ah ayaa ka soo baxay halka buu yiri wadaanu uu nagu sii dhacdo Amerikan muxuu ka qaban karaa odaygan miskiinka ah muxuu ka qaban karaa ninka kan dhulka oo dhan xukuma waxa uu yiri uu fadhiistay kursi waa loo dhigay waxa uu yiri ayna al-kahana annaga waayo yiraahdeen maxaad sheeganaysaan istaaga way yiraahdeen buu yiri maxaad sheeganaysaan waxaanu sheeganaynaa in saa annagoon indaarna la siin annagoon digniina la siin baa habeen badhna la kusoo guday dhulkayagii la qabsaday fadhiista buu yiri Qutayba adna istaag sidii arday baa loo istaajinaya istaag buu yiri Qutaybo maxaad ka leedahay dacwada nimankan kugu oogeen waa jirtaa buu yiri qaadi sababtoo ah dhulka Faris aanu furanay oo dhan digniin waxaanu siinay saddexdaba waa u bandhignay laakiin kulligood waa nala wada dagaalameen waxaan ka faa'iidnay inay noo diyaar garoobaan oo dad badan naga laayaan si aan marka dhiigga muslimiinta u ilaaliyo maadaama dawladihii la mid ahaay oo dhan aan soo marnay ay siyaasadooda ahayd inay nala dagaalamaan ayaa waxaan jiray dhiigga muslimiinta adoona cid badan ka lahayn kuwan waa isku milla kufra waahid waa isku mid ah markii ka takhaluso iyagoona digniintiin qafla baabin kaga dhig arrinta waxa uu yiri makhraanti ma doonta weey arrintan waxaan xukumay jeyska muslimiintu inuu ka baxo Samarqanda kahanadana loo wareejiyo dhulkooda lana siiyo fursad ay ku diyaar garoobaan oo ciidan ku samaystaan tasawwur fursad ay ku diyaar garoobaan oo ciidan ku samaystaan ka bacdi saddexdii loo bandhigo haddii ay diidaan markaa dagaal ay noqoto saddexdii waxa uu yiri kahanadii way sawir kari waayeen waxay moodeen been waxay moodeen dhalanteed iyo waxaan suurtagal ahayn iyo wax xaqiiqada ka fog iyagoo indhahooda shan ah بنادي المنادي باقيلي حيرا كإسلام كوينو كبحو مباشرة بالفلينيا لا رأسن ما إلا يرادو مجلسة بل لقصو تصديقه أما بارلمان كواسو أنسحيو أما قاضيقة حكومي واسلا قاضيقو حكومي وحي أركين هرسودا حيرا كيو انسحاب سمين آيا مسلمين يكسو بحا وحولي كدقاق آيا ووحل على وحيدو مبتين كدقاق آيا nimankii iyagoona majliskii laga kicin baa ciidankii markiiba bilaabay inuu intihaabsanayo way arkeen inay waxa xaqiiqad ka tahay mar keliya ayay waxay dhaheen ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah kulligood halkii ku wada islaameen kahanadii kulligood nafs laxda ayay wada islaameen waxayna yiraahdeen waxaanu ka raali noqonay diintan ayaanu diin uga raali noqonay hana joogeen Qutayba iyo ciidankiisu halkii ayaa ay ku dhamaatay qissatu Samarqanda العجيبة هذا عبر ككسوغا قصدا المحيطة عبر عادي عاد بلارا أيا قصدا كسوغا وحكم إذا ظلمة الكفر وما كانوا من العزل والظلمة ظلمة دي قال لماذا الظلمة دي عزل قايلة إيه وحي مودا ينبرواغين كسوغينيين لمن كهاندا ددك معمول عيا sheegana inay ilaahiyiin dadkay ku jireen waad garanaysaa inuu ka sheekeeyay marka gaalnimadu wax dulmada iyo dulmiga ay leedahay cijlada ay leedahay barwaaqo badan oo ilaahay ka xanibin ayay iska xanibeen halkaas ay ku jireen ma guursadaan halkaas ay dadka ka xukumaan waxa la waxay haystaan ma jirto ma soo baxaan qorxna ma arkaan cadaab ay ku noolaayeen ilaahay subhanahu wa ta'ala nicmada islaamka uu ina siiyay in qofku marka ku mahadiyo afrikadan dhow hadda jirtay dadka la caabudayo iyo waxa ay yihiin iyo boqolaalka ilaahiyada laga dhiganayo wad yaabaysa laakiin ilaaha islaamkeena ka dhigay ee aan kahano ilaahiy inoo ka dhigin ama sida afrika aan 110 ilaahiy iyo 110 diinood inoo yeelin waa nicmo ilaahay ina siiyay khaasatan dadka Soomaalida nahay cibarka ku jira cadaalada islaamka cadaaladiisa lama sheegin ciidan adduunka ka insaxaabay intuu meel qabsaday ومثلا يري ديار قروة عن من الله دقالنا وأول مرة في التاريخ إذا مدو مرة ميل قلا وين أغنى وحي سمايا إن لا دقالنا ما هيك كما بحان عيار
iyagoo lala dagaalamayo tobanaan maalin kasta laga dilaayay laga yaabaa inay kusii sugan yihiin laakiin islaamku cadaalad iyo nicmo cadiima weeye waxaa marka halkaa u daliila jeyshka islaamku inuu yahay jeysh raxiim ah oo aan dhiigga inuu daadiyo uun u mamanayn ee inuu dadka diinta furto ama quluubta gaarsiiyo diinta ay hadafkiisa koowaad ay tahay ayaa cibarka ku jira ka mida waxaa kaloo ku jira inuu kullu muslim daaci yahay inaynu iska farfadhino maaha qof kastoo muslima inuu diinta tandalowgiisa u rito oo ka qayb qaataa loo baahan yahay balliquu canii walow aaya buu nebigu leeyahay iga gaadhsiiye aayad keligana ha noqotee ninkii tukanayey ee uu u yimi ma uu isdhaafin oo wuxuu rabay uma sheegin markiiba islaamka u bandhigay kelmad baa laga yaabaa aad islaamka u gaadhsiisin inay meel fog gaadho waxa uu yidhi nin suudaniya nin filibiiniya islaamay waxaa la yidhi maxaa ku islaamtay waxa uu yidhi nin suudani oo dareewal weeye ayaa isoo mari jiray marka waxaan ka shaqayn jiray meelahan baatoolka laga cabeeyo wuxuu oran jiray english buu aqoona kelmad kaliya englishka ka yaqaanay wuxuu oran jiray buu markastuu soo maro the islam is good kelmaddaas ugu oran jiray islaamku waa wax wanaagsan kelmaddii maalin kasta way igu soo celceliya wixii baa ta'siir ugu samay markii dambe waxaan raadsaday bal islaamka laga sheekaynayo kutub ka waramaysa raadi kutubtii baan akhriyey sidii baan ku islaamay waa kelima waaxid ninkaas ingiliiska ka yaqaanay kelmaddii buu dadka u bandhigay kelmaddii baa dadku u islaamay marka kulla yawm aad meel maraysid imise aad aragtaa munkara ama imise muslina oo baadiyeysan baad aragtaan soo ma badna ya maxaa kuu diiday inaad marka kelmad gaadsiisid islaamka wanaagiisa marka cibarka ku jira waxaa weeye inuu kullu muslim daaci noqdo oo aad u diyaargarowdin inaad daaci noqotid waxaa ku jira cibarka nicmat alukhuwa alislaamiya walaaltinimada islaamku barwaaqada iyo nicmada ay leedahay ninka kanu markii hore dhib badan buu la kulmay soo ma ahayn markuu noqdayna muxuu la kulmay barwaaqo badan oo ay masjidku u keenay waxaa taas wax badan baa ka suulay oo aad moodid inay sii dabardo-ayso waxaa laga yaabaa labada masjidka ku wada iskala inayna isaqoon weligoodna is odhan assalaamu calaykum ama walaal iska warran ama xaaladooda uunan ka warhayn ama jaarkaaga aadan xaaladda uu ku nool yahay aadan ka warhayn laga yaabay maalintii inaad cuntadeeda haysid isna inuu gaajo u dhinto marka in lasoo neeleeyo walaaltinimada islaamka nebigu buu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu u haraynayaa laba qof oo diinta ilaahay ku walaaloobay waxaana la dhahaa waa waxa daa'ima oo hadha walaaltinimada islaamku wax kastaaba way baaba'an ama waa lagu kala tagaa ama walaalnimo kastaaba way baaba'daa hadday xitaa adduunka daa'imto aakhiray ku baaba'daa alakhillaau yowmaydin bacduhum libacdin caduw ila almuttaqiin baa laleeyahay walaaluhu maalinta yowmalqiyaama waa cadow bay barkood barka kale isu yihiin ilaa muttaqiinta ma ogiye walaaltinimada islaamku marku waa wixii islaamku markasta ku guulaysan jiray waxaa kaloo ka mid a in qisadan aynu ka faa'iidaynaa idaa salaxa alra's salaxat alacdaa aljism kaamilatan haddii madaxu hagaago xubnaha oo dhan baa hagaaga haddii madaxu hagaago cumar markuu hagaagay xubnihii oo dhan baa hagaagay qaadigii wuu hagaagay oo cadal buu ku xukumay kutaybana wuu hagaago cadaaladii buu qaatay waali kastaana saas u halaagaya haddii madaxweynuhu hagaago ama ninka ummadda ugu sarreeya ama boqorku ama amiirku ama cid magac kasta ku sheeg hadday hagaagaan iyagu mujtamacu wuu hagaagaya haddii isagu fasaadana aljamiic waa fasaadaya waa qalbiga xalka uu ka joogo qofka bini aadanka nabigu wuxuu leeyahay ina fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluh waxaa jidhka ku jira xubin hadday hagaagto jidhka o dhan hagaagayo alaa wahuwa alqalb qalbiga weeye hogaanka ummaddu waa nin cidda u sarraysa haddii ciddaas hagaagto ummaddu way hagaagaysaa marka haddii qofku wuxuu eegtaa baa laga yaabaa hadda inaad u madax taagaysaan madax iyo adigu gurigaaga madax baad ka tahay soo maaha gurigaaga haddaa adigu hagaagsan tahay carruurtu way hagaagaysaa oo xaasku waa hagaagaya haddaa adigu khariban tahayna kulligood way wada kharaabayaan marka qof kastaaba aqiimuu dawlat alislaami buu yidhi mufakarkii suudaaniga ahaa oo islaamiga ahaa fii quluubikum taqum lakum fii ardikum dawlat alislaam ka ooga naftiina ka ooga dhulkiinay ka oogmaysaaye marka qofku inuu diinta isku dabaqo isagu iska bilaabo ayaa loo baahan yahay cibarka laga faa'iidaayo alafcaalu ablaq min alaqwaal afcaashu way ka xeel dheer tahay ta'siirkeedu qowlka nimankan markay arkeen cadaaladii islaamka iyo ciidankii qabsaday dhulkan oo dhan oo insixaabaya
ومغالدي دبوا قرنايا maxaa xaaladoodu noqotay markii hore way shakiyeen armi aqwaal iska tahay bay dhaheen laakiin markay arkeen wuxuu inuu amal yahay oo ficil yahay taxawulu ila islam bay taxawuleen marka qudwa hada rabtiyaan noqotid waa ina amalkaaga iyo qowlkaagu iswaafaqaan waa ina adigu naftaada ka bilowdaa intaada cid kale amrin waa ina amal samaysa inanka yar aabihi la jooga aabihi qadka cunaya guriga la imanayo ما رميتنا يا إنه أبير هذا قاس وواحد تبتقل مثلا ما وهي عملك كان دليله مركز هدار السيد إناد وحاجة السيد الشقة ده هو نعسنات دينتنا هنقطة دقن كذا وحكومي ترى فوائدك انقصك بنا آدم فيه كتنازلك لمبادئ سقيت كم تقارن كرو سوء مبادئ كوي أقارو نسي مسلمي وحقرية مبدئي في إسلامي جاها يسوى كبغايا كهندني خلافان بوركيسة si ay qoomkiisu islaamaan ayuu qariyay islaamkiisii isagoo ku qancay marka qofka bini aadamkiisa inuu marmarka qaarkood mabdi'iisa fatra ka tanaasuli karo oo takhdiid geli karo si uu u helo wax ka weyn man araadahu alkull faatahu alkull qofkii mar wada doona wax kastaaba ma wada gaadho xayaatada noloshuna waa tadarruj ilaahay sunankiisa koonka waxaa ka mid ah tallaabo inaad u socotid haddaad guriga mar kaliya ku boodid inaad dhabar ku jabaa laga yaabaa qof ma jira guriga jaranjarooyinkiisa tan horeysa ka booda ilaa tan u sareysa gaala mar kaliya ma jiro talaabaad qaadaysa jaranjarada saddexaad afraad ilaa aad ka gaadhin meesha guriga aad ka reebtid u sareysa nolosha adduunkuna waa sidaa tadarruj inaad samaysid tallaabo inaad qaadid ayaa loo baahan yahay laakiin haddaad tiraahdo mar baan wada degay arrintoo dhan way kula degaysaa nabigeenuna calayhi salaatu wasalaam khayru daliil buu yahay wuxuu ka tegey kacbada ayuu nebigu wuxuu uga tegey inuu baabi'iyo micnaha burburiyo oo asaaskeedii ku soo celiyo شيء واحد قوم كيسو إسلام كعسبا والنبي يقول لي أدان قوم كادوا عائشة أهين قوم حديث العهد وأنتم لها وحنا كسو علين لها أساس النبي إسماعيل إبراهيم عليه السلام أي أولي السن وأنت مقام إسماعيل من قدها قلين لها وين لكن محونا بيقول محوغتي سماها إنه دفك كانوا أين مستواها إلى الآن قاعدين بغدين وكبقايا دفك كانوا أين دينتو دبي دبوا النقدان أما دباتك وين أي كسماتو والله يرى النبي شيغانا ايي دي كعبده انه دفاعايو اي ايدي بربرينايا والنبي وكتي عليه الصلاه والسلام منافقينتي ادغرانيسا دبكي ku hayeen ayuu wuxuu uga tagay inaan dadku ku sheekaysan nabi maxamed saaxiibadiisu leeynaya asxaabtiisu leeynaya marka wax badan oo aad arkaysid oo xaq ah baan waqtigiisa la fulin يعني wax aad adigu xaq u leedahay ayeenin keenay inaad xaqaas marka fuliso hadii masiibo ka weyn ka imanayso haddii masiibo ka weyni ay ka imanayso inaad xaqaaga markaba dalbatid waxaa ka imanaysa inaad dib u dhigtid ayaa ay keenaysaa xikmada iyo sharcigu iyo caqliguba بالله توفيق أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعتبرون العبر ويقتدون سنة محمد عليه الصلاة والسلام والسلام عليكم ورحمة يقتدون سنة محمد عليه الصلاة والسلام والسلام عليكم ورحمة يقتدون سنة محمد عليه الصلاة والسلام والسلام عليكم ورحمة